wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Ciro ayaa soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland oo ugu horeeyo gudoomiyaha guddigaasi Siyaad Maxamed Mursal iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan Jubbaland. soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyay kadib ayaa waxa uu horeen warbaahinta la hadlay Siyaad Maxamed Mursal oo ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubbaland wuxuu tilmaamay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ku soo dhaweeyo magaalada Kismaayo wafdiga uu hogaaminayo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Ciro. mudane Maxamed Ciro iyo wafdiga la socda ee nooga yimid Muqdisho waan soo dhaweeyna gudoomiye ku soo dhawaada Kismaayo. dadka halka fadhiya waa guddigii doorashooyinka ee seat Jubbaland oo xabada ka maqnayn dhammaystiran. insha Allah waxaan rajaynaynaa intii hadda noo qabsoontayna malaha meeyaad ka socoteen in badanna waxaan ku horgala xiriirna khadka oo kaga sheekaysanay wixii noo dhimanna waa isla ogaan doonaa. gudoomiye soo dhawow ku soo dhawaada magaaladiinii iyo statekiinii Jubbaland ku soo dhawaada shaqadii doorashada oo aad nala ogaan doontaan insha Allah taala. intaas muhiimadda ah. Maxamed Xasan Ciro gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo dhankiisa madasha ka hadlay ayaa sheegay inuu u imaaday magaalada Kismaayo si uu dardargeliyo doorashooyinka ka dhacaya magaalooyinka Kismaayo iyo Garbaharey. waa ku faraxsanahay inaan idin imaadno anagoo og inay xilli aad u muhiim u tahay wadanka ay muhiim u tahay doorashada anagoo dareemaynaa in tareenkii doorashadu albaabadiisu ay dhaqso u furmayaan una dhaqaaqayo idinkuna aad u tihiin udub dhexaadkii fulinayay doorashada. marka waan ku faraxsanahay inaan idin imaadno hawsha wax idinkala ogaano idinkoo ah hal team wada shaqaynaya doorasho wada qabanaya ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan ummadda reer Jubbalandna ay aad idin eegayaan inagoo dhanna ay Soomaalidu inoo wada eegayso. Khadar Iimaan Dhaqane warbaahinta qaranka Kismaayo.